Caqliga wanaagsani waa ubax qurux badan oo aan ka bixin beertaada. Ma jirto qof qalbigaaga dhaawici kara haddii aanad siraha iyo meelaha aad u liidato u sheegin. Dadka oo dhan ha kula dhaqmin dabeecad keliya, waayo cudurrada oo dhan ma lahan hal daawo. Haddii aad la fadhiisato jaahiliinta, aamus. Haddii aad la fadhiisato culimada, aamus. Maxaa yeelay kan jaahilka ah dulqaad ayaa kaaga kordhaya, kan culimada ana aqoon. Biyo kasta oo macaan ee ka soo da'a samada waxba kama beddelaan biyaha dhanaan ee badda. Kalsooni sii naftaada, adiga ayaa isbeddeli kara ee cidna kuma beddeli kartee. Ha sii eegin gadaal iyo wixii tagay. Ma jiro qof orod ku guuleysta asagoo eegaya xagga dambe. Farxaddu ma ahan inaad hesho waxaad rabto waqti kasta, ee waa inaad jeclaato waxaad haysatid kuna mahadnaqdid. Dadka caqliga badan waxay leeyihiin asxaab badan, cadowgooduna wuu yar yahay. Waayo saaxiib sanad baad ku heshaa, cadowna hal maalin. Wanaag waxaa leh qofkii Alle siiyo dabeecad wanaagsan. Waqtigu qofna ma beddelayo, laakiin waqtigu wuxuu muujiyaa xaqiiqda qofka. Markasta oo ay gabadhu bulshada ku dhex yeelato sharaf iyo soo dhaweyn, waxay muujinaysaa wanaagga iyo karaamada ninkeeda. Gabar waxa ugu weyn ee kor u qaada waa inay dhowrsanaataa. Haddii aad jeceshahay inay dadku ku cafiyaan, adigu bilow cafiska iyo saamaxaadda. Arrinta ugu wanaagsan ee ku difaaci karta markaad maqan tahay waa akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsan.